marka caruurta waxay midabeynayaan kan ayay midabeynayaan oo waxay ka fiirsanayaan sawirkan halkan ku yaala isla sidaasoo kale asagoo farshaxan sameynaya ayuu wuxuu baranayaa xayawaankan magaciisa oo ah geri. marka buugaagtan waxaad ka heli kartaa bogga Amazon ayaad ka heli kartaa. waxaa jira 3 buug oo aan isticmaali jiray oo ahaa mid ballamaha, mid to-do list waxa la yiraahdo oo maalinta waxaan qabanaya aan ku qori jiray, iyo buug waxaa jiray markaasi weekly planner ah ama jadwal toddobaadle ah ayaa jiray. oo jadwal toddobaadlaha markaan ku qoro waxaan toddobaadka qabanayo ayaa waxaa ku qori jiray to-do listiga oo aan maalin walba aan ku qaban jiray. sidoo kale buug ballan oo gaari ah oo ballamaan ugu talagalay ayaa jiray. 3dii buug ayaan isku khulaaseeyay oo aan isku soo daray oo aan halkan ku soo koobay. assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan. waxaan ku rajeynayaa inay galab qurux badan ku tahay, isku soo noqod wanaagsan mar kale. muuqaalkan waa muuqaal aan ugu talagalay inaan daaha ka rogo ama aan halkan aan ku furo suuq online ah ama store online ah oo aad ka iibsan kartid buugaagta caruurta iyo buugaagta jadwalka ama plannerka, weekly plannerka, xasuus qorada aad ka iibsan kartid. mashruucan ma ahayn mashruuc iyo qorshaysnaa ama ka mid ahaa mashruucyada aan ku taamayay inaan sanadahan dhow aan sameeyo ama aan bulshada la wadaago, laakiin waa mashruuc ku yimid waqti kooban oo aan ka fikiray, dhinaca jabgeliyey, kadibna markaasi ii suurta gashay inaan markiiba aan diyaariyo sana aan kula wadaago. mashruucan waa mashruucii ugu muhiimsanaa oo aan bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago. Amazon suuqa la yiraahdo aadka looga adeegto waxaa ku jira buugaag kala duwan oo midabeynta buugaagta caruurta ah, iyo waxaa ku jira buugaag kale oo weekly plannerka, journalinka ku saabsan ayaa ku jira. dhammaantooda luqado qalaad ayay ku qoran yihiin, kuma qorna luqadayna hooyo kuma qorna. marka sidaa ayay iigu dhalatay in Amazon ama suuqan online-ka aan ka hirgeliyo buugaag afka hooyo ku qoran oo xusuus qorro ah iyo kuwo jadwallo toddobaadla ah iyo buugaagta midabeynta caruurta oo afka Soomaaliga ku qoran inaan ka hirgeliyo. waa mashruuc aad adigu ka faa'iidaysid, aniguna aan ka faa'iidayo, oo faa'iidada keliya aan anigu ka helayo ma ahan dhaqaale, ee faa'iidada waxay tahay anigu laftigayga, caruurtayda iyo saaxiibadayda iyo anigaba ayaa ka adeeganaya. oo maanta halkan waxaan kula wadaagi doonaa buugaagtii ugu dambeeyey ee aan suuqan aan ku baahiyey. dabcan haddii aad hooyo tahay ama aad aabba tahay amaba aad tahay dhallinyarada jecel in ay productivity ama dad wax soo saar leh ama qof dhallinyaro wax soo saar leh inuu noqdo ee xasuus qor sameeya, sidoo kalena jadwal maalinlaha iyo jadwal toddobaadlaha noloshiisa ku dabaqa, adiguna farxad ayay ku tahay. marka maanta waxaa halkan kula wadaagi doonaa suuqa online-ka magaciisa, qorshaha ka dambeeya oo aan hadda kuu sheegay, hadafka aan ka leeyahay oo ah in laga helo buugaag ku qoran afka Soomaaliga ayaan ugu talagalay in muuqaalkan aan kugula wadaago. fadlan haddii aad hooyo tahay ama aabba tahay ama qof jecel inuu noloshiisa qaabeeyo uu ku qaabilo jadwal, fadlan ka adeego suuqan oo Amazon waddanka aad ku sugan tahay geli ciwaanada buugaagta aan kula wadaagi doono, halkaasina ka adeego. caruurtaada way ku madadaali doonaan, farshaxan ayay ku baran doonaan, afka hooyana way ku baran doonaan. sidoo kale adigu haddii aad tahay dadka xasuus qorka iyo jadwalka jecel, wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa oo waxaan kuu sameeyey buugaag ku qoran afkaaga hooyo oo aad ka faa'iidi doontid. buugga ugu horreeya aan kula wadaagayo amaba aan jeclaysta inaan kula wadaago, maadaama buugaagta u badan ee aan ku soo bandhigay boggan ama suuqan online-ka aan ku soo bandhigay ay ka mid yihiin
buugaagta caruurta buugga ugu horeeya aan kula wadaagay waa buuggan. waxaa ku qoran buugga midabaynta caruurta oo 2 luqad ah, af Soomaali iyo af English, iyo stoorka magaciisa ama dukaankeena magaciisa. buuggan waxaan ugu talagalay caruurta 3 jirka ilaa iyo 6 jirka oo ay ku midabayn karaan ama ay artiska ku baran karaan luqadooda hooyana ay markaa ku baran karaan xayawaanada buuggan gudihiisa ku sawiran. buuggan waa buug aad u fudud oo midabayn ah, sida halkan aad uga muuqatid ama halkan aad ka arki kartid. buugga ugu fudud haddii aan kuu soo qaato, waxaad halkan ka arki kartaa geri oo midabaysan iyo geri aan midabaysnayn. marka caruurta waxay midabaynayaan kan ayay midabaynayaan oo waxay ka fiirsanayaan sawirkan halkan ku yaala. isla sidaasoo kale asagoo farshaxan samaynaya ayuu wuxuu baranayaa xayawaankan magaciisa oo ah geri. sidoo kale xayawaano kale ayaa ku jira oo dhowr xayawaan ah. waa 30 buug, waxaana loogu talagalay 3 jir ilaa iyo 6 jir. marka haddii aad hooyo tahay, caruurta siday kuugu madadaalaan, afka hooyo ee xayawaanada ugu bartaan, farshaxankan ay u jeclaadaan buuggan, waxaan kugula talinayaa inaad Amazon ka iibsato, ciwaankaas aad geliso. buugga labaad oo ka mid ah buugaagta aan ku soo bandhigay stoorka online-ka ee Qalin Store waa buugga midabaynta caruurta oo isagana ah buug xayawaana oo loogu talagalay da'da 4 jir ilaa iyo 8 jir. dabcan 3 jir ilaa iyo 8 jir ayaa ku qoran, laakiin 4 jir ilaa iyo 8 jir ayaa ka faa'iideysan kara, ilaa iyo 9 jir ilaa iyo 10 jir wuu ka faa'iideysan karaa. waa buug ka yara adag buugga hore oo ma laha wax midabayn ah, wax midab ah ma laha. sida halkan kaaga muuqata, halkan waxa kaaga muuqda waa ey, halkan waxa kaaga muuqda waa daruuro iyo qoraxdii iyo ubaxyo iyo weelka uu eyga ama wax loogu shubo. marka midabayn ayuu u baahan yahay, aad u ballaaran yahay kan, oo kii hore wuu ka yara adag yahay. laakiin caruurta markay yaqaanaan eyga kalarkiisa iyo midabada daruuraha iyo qoraxda iyo guriga eyga uu galo oo halkan aad u jeedid iyo ubaxyada midabadooda markay yaqaanaan, ayuu markaa u suurtagelaysaa marka in uu midabeeyo. waxoogaa waa advanced oo ilaa iyo 4 jir ilaa iyo 10 jir ayaa midabay karaa. sidaasoo kale wuxuu baran karaa cunuga yar inuu waxaan uu yahay ey, oo haddii qurbaha ay caruurta ku nool yihiin way ka faa'iideysan karaan. oo xayawaankan haddii aad weydiiso hooyo xayawaankan ama aabba xayawaankan magaciisa ma garanaysa, haddii aad dhahdid inuu markaa uu kuu sheego, uu ku yiraahdo hooyo xayawaankan waa ey. at the same time waxyaabahan kale ayuu baran karaa sida ubaxa, guriga, daruuraha iyo qoraxda ayuu baran karaa oo adigu aad bari kartaa. marka waa buug ka yara duwan buugga kale, balse wax badan ayuu maaragtay ka faa'iideeyaa. sidoo kale waxaa ku jira, haddii aan bogag aad u fara badan ayuu ka kooban yahay, sida halkan ka aragtid. inkastoo lahjadaha iyo deegaanada laga hadlo ay ku kala duwan yihiin afka Soomaaliga iyo xayawaanada, haddana waxaan isku dayi doonaa inaan dhalinyaro badan bal iyaguna aan uga faa'iideyno ay stoorkan ay qayb ka noqdaan. sida halkan aad u jeedid, koonfurta kaneecada laga yiraahdaa. waa kaneeco magacyo badan ayaa looga yaqaanaa gobollada waqooyi ilaa iyo bari. haddana sidaasay tahay, caruurtu way baranayaan, waayo inagu waxaan garanaynaa magacyo badan oo loogu yeeri kara xayawaanka yar. marka midabaynta nooca ay u eg tahay kaneecada, hadduu cunuga garanaya markaa wuu midabay karaa. sidoo kalena wuxuu ku baranayaa afkiisa hooyo isagoo midabaynaya. marka buuggan waa buug aad advanced u ah. dabcan shinni, sidaad u jeedid, midabka shinnida haddii uu cunuga garanayo, waxa u suurtagelaysa inuu markaa uu midabeeyo, uu markaa si qurux badan intuu u midabeeyo uu xayawaankiina uu garto, isagoo ku madadaalaya, farshaxan samaynaya, waxna ku baranaya. marka buugaagtan waxaad ka heli kartaa bogga Amazon, ayaad ka heli kartaa. amazon.com ayaa stoorka ugu weyn, laakiin Amazon walba oo ku yaala caalamka ayaad gelinaysaa ciwaanka si uusan kaaga soo daahin, canshuur badan ay kaaga bixin,
packagingka iyo deliveryga lacag fara badan aysan kaaga bixin. Waddankaad ku sugan tahay keliya ciwaankiisa geli. Markaad ciwaankiisa aad geliso Amazon Germany haddaad joogtid, ama Amazon France haddaad joogtid, ama Amazon UK, ama Amazon Maraykan haddii aad joogtid, at the same time markaa buugga waad helaysaa oo suuqyada Amazon oo dhan ayaa laga helayaa. Marka buuggan waxaan rajaynayaa inaad caruurtaada u iibi doontid, aadna kaga faa'iiday doontid, ayna baro doonaan. Marka laga yimaado buwaagta caruurta, buwaag kale oo aan ku soo bandhigay ayaa jira bogga ama storeka qalin store aan ku soo bandhigay. Buwaagtaas waxaa ka mid ah buuggan oo ah jadwalka toddobaadka. Dabcan midabkan ilama qurux badna, waxa saa u yeelay waa halka ayaan saaray, safarna waa ku maqnaa, haddana gacnahayga ayaa ku taataabtay, qurux badan ilama laha. Waan bedelay, update ayaan ku sameeyey kafarkan, oo hadda waxaad ka helaysaa isagoo midab kale ah, laakiin waa isku mid oo waxa ku qoran jadwalka toddobaadka ayaa ku qoran. Waxaa jira 3 buug oo aan isticmaali jiray oo ahaa mid ballamaha, mid to-do list waxa la yiraahdo oo maalinta waxaan qabanay aan ku qori jiray, iyo buug waxaa jiray markaasi weekly planner ah ama jadwal toddobaadle ah ayaa jiray. oo jadwal toddobaadlaha markaan ku qoro waxaan toddobaadka qabanayo ayaa waxaa ku qori jiray to-do listiga oo aan maalin walba aan ku qaban jiray. sidoo kale buug ballan oo gaari ah oo ballamaan ugu talagalay ayaa jiray. 3dii buug ayaan isku khulaaseeyey oo aan isku soo daray oo aan halkan ku soo koobay. sida halkan ka arki kartid, halkan waxaad ku qoranaysaa waxyaabaha aad qabanaysid, halkanna waa weekly planner-kaaga 5 waxyaabood ama 10 waxyaabood oo aad toddobaadkii aad qabatid ayaad ku qoranaysaa. halkanna waa to-do listigii waxyaabaha markaad qabatid aad ku saxaysid. halkanna waa ballamaha oo ballamihii maanta 2 ballan 3 ballan haddii aad leedahay halkan aan ku qorto, haddii kaa buuxsanto ballamaha halkan ayaad ku sii qoraysaa. anigoo markaa ugu talagalay in dhalinyarada Soomaaliyeed aan kaga faa'iideeyay intay 3 buug sida anigoo kale ay soo iibsan lahaayeen weekly planner, to-do list iyo buugga ballamaha ama appointmentska, in markaa aad 3 buug soo iibsatid kharashna aad ka bixisid, ayaa marka ugu talagalay inaan kuu soo koobo oo aan 1 buug kaaga dhigo. buuggan lacagtiisu waa $7 €7 meelaha weeye. $7 iyo €7 anigu wax profit ah oo 70 senti ah ayaan ka faa'iidayaa. inta kale waa daabacadda, waa packagingka iyo deliveryga iyo cashuurta waddanka markaasi aad ku bixinaysid. marka 70 senti dabcan waxaan u malaynayaa qof shaqeeya wax barta inuu 70 senti meel u fadhinaynin, laakiin waxa ay farxad gelinaya oo maaragtay aadka ii xiise gelinaya waa in store online ah oo qof Soomaaliyeed uu leeyahay waxyaabo Soomaaliyeedna lagu soo gudbiyo buwaagta caruurta, midabaynta iyo buwaagta jadwalada ama xusuus qorrada laga heli karo ayaa ah waxa iigu farxadda badan, waana mashruuca iigu farxadda badan ee aan bulshadayda ama community-gayga aan la wadaago. marka fadlan haddii aad tahay qof ka adeega kara Amazon ka adeega kara, fadlan waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad buwaagtan aad iibsatid oo aad ka faa'iidaystid. waxa dhacay waa WhatsApp-kii ka raali noqda. marka muuqaalka intaa ayaan jeclaystay inaan ku soo koobo. fadlan ka adeegta qalin store, saaxiibna ka dhigta. buwaag badan ayaan ku soo gudbi doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. marka halka uga baxno, waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideeyo dhalinyarada danaynaysa ama aadka u danaynaysa inay ila shaqeeyaan, qaybna ka noqdaan safarkan storekan online-ka. sababta magacayga aan ugu qori waayo buwaagtan wax kale maaha. magacayga waa ku qori karay, laakiin waxa igala sharaf badnaatay mashruuca inuu noqdo mashruuc ballaaran oo dad badan oo dhalinyaraha ay ka faa'iidaystaan, iyaguna ay markaa wax soo curiyaan, buwaagta ay soo curiyeen markaa aan ku soo baahiyo oo ay wada shaqayn ayna dhex marto. marka faa'iidada aan kaga faa'iideyno dhalinyarada waxay tahay in aan u baahannahay ama aan u baahanahay 2 qof oo design-ka ku wanaagsan oo yaqaana qaabka Canva loogu sameeyo buwaagta, kadibna markaa si madax bannaan ila shaqeeya. shaqada ii qabtaana markaasi aan maalintaasi aan lacag ku siiyo. inkastoo storeka uu yahay store bilow ah
oo aan sinti aan ka faa'iidin 70 sinti aan hadda kuu sheegayo aysan wax aad u buuran ahayn. haddana waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada inay wada shaqayn dhex marto, iyaguna ay wax faa'iidaan, dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeedna ay wax ka faa'iidaan. marka hadafka aan ka leeyahay waa bulshada inaan ugu adeego, maahan inaan dhaqaale ka sameeyo, maahan hadafka ugu weyn. marka fadlan qayb ka noqo inaad storekan wax ka iibsatid. sidoo kale haddii aad tahay qof designka ku wanaagsan, Canva aad u yaqaana, ila soo xiriir oo emailka profileka noo saaran noogu soo dir fariintaada, aniga ayaa kula soo hadli doona. markaana halkaa ayay wada shaqayn ugu dhex mari doontaa. gobolkaad doonto ku sugnow, deegaankaad doonto ku sugnow, wada shaqayn ayaana dhex mari doonta. marka muuqaalka intaa ayaan kusoo goobayaa. kuleel aad u daran ayaa jira, laakiin waxa igu farxadda badan waa inaan kula wadaago warkan farxadda. marka tan intaa muuqaal mid kale mid aan ku kulmi doono, waxaan kaaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.